war degdeg oo hadda naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in deegaanka Basra oo u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayaa waxa la sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay qarax xooggan oo lala beegsaday gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ka ambabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa wararka la helaya waxa ay sheegayaan in uu qabsaday gaari uu saarnaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka Basra. sidoo kale qaraxa ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar kale oo ka tirsan ciidamada dawladda iyadoo oo hadda howlgal miino baaris ah ay ciidamada dawladda ay ka wadaan wadada xiriirisa degmada Balcad iyo deegaanka Basra. الله نحرسته فرحان قرالة أيها وحى وهانين ليراء وآد أفر فرعون كان مدى عندما حرم عد سيدا جار كأوتوا بران أوتوا بران أرمها أرجع سيدا يلا دجالن كقاعة أرجع سيدا وهي ورره كسر قرن قدم كاسي وحات كلاس عندهم تان قلك ورركع